مسائل كان علمي كان كور رمية واحد شرا واحد علماء وكلا صاران ويدادنا تفسير العلمي يا واحد كتل المامان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التفسير العلمي وإشارات القرآن كي وحيابه تلمام يا بعض النظريات العلمية اللي فسره تاسي خطأنا وين غكرتها صوابنا وين غكرتها لكن مسألة أنا كور رمينا ما هطها مسألة أنا وحويان ووح تحت التجربة قال ووح مشاهدة قال ووح أركتين نقضي مثلا ilmaha iyo caloosha sidoo ugu koro waagi hore saynis yahanadii dunida waxay rumaysanaayeen bini aadamku inuu ka abuurmo xaydka dumarka masala focuska cilmiga ku qoran bay ahayd inuu xaydka dumarka ka abuurmo ilaa iyo qarnigii 17aad laga soo gaadhay saasaa la rumaysanaa iyadoo culamadii muslimiinta ibn Hajar iyo ibn al-Qayyim iyo baradinaya kutubtooda markay masaa xadiistii ka warramaysay nabigu tilmaamay waxa qofka bini'aadamka laga abuuro ama aayadka quraanka markay sharxayaan bay waxay qori jireen waa qalad waxa ay tabiiciyiintu rumaysan yihiin in xayd wax ka abuurmaana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa min maa'in in laga abuuray mahiina ama من ماء دافق أما يعني نصوص القرآن كي حديث واحد تلماميسي وقت قاسي كنت تلماميين علماء المسلمين تاني فكرة دا ساينس كي قلدان تاهي محيد لشانيين وحيد لشانيين نصوص القرآن كي حديث كساراري ميكروسكوبكم مركوب بالعمي ميكروسكوب يرو قديم وقبوبي باشرو برغورا الاستعمال الشرعي هل كان قرار دا يركو سميسانتا ايش انا هل كان لسارو وحال يجي انا هل كان لدغو وحير 10 times meelaha soo waxweynaya markii koowaad ay xooyinka manawiga arki karaan waxay rumaysteen in qofka oo iska kuusani uu ku jiro manida dadka ee rixumku bay yiraahdeen waa meel uu ku koro qof dabeetana sawirada hore hadaad aragto isbaamka sawiraya madax yar buurana isbaamka waxa ku jira qof yar fadhiyo adimadiisa madaxiya wixii oo dhan yani waa fikrad ay takhayuleen microscope laga ma arag laakiin markii la ogaaday xayawaan manawi inuu ku jiro manida raga fikrada saynis yahanadu takhayuleen waxay ahayd in qofka iska kuusan uu meesha dhex fadhiyo uurka hooyadu waa beerun bay yiraahdeen ilmahan uu ku weynaaday ilaa iyo intuu ka noqonayo ilma dhasha waqti dambe hadana waxay ogaadeen buyayda ama hooyaduna inay baad leedahay hadana fikrad kale qaateen oo ah ninku waa uu qarxiya ama waa kobciyaune qofka kuusan inuu beedka ku dhex jiro hadana buwaagtooda kale waxaad ku arkaysaa xabada beeda oo qofka kuusani u dhex yaalo waqti kasta oo aqoonta la leeyay waxaan wax lagu eegayo waxaan soo koreen ay xaqaayiq badan la ogaaday quraanku se waqtigaas wuxuu ka warramayaa in insaanku min maniyin yumna min dhakarin wa unsa in ilaahay ka abuuro lab iyo dhadiga isu tagoodo labadaba in alla ka abuuro in ay markaas ka dhalato nutfatin amshaaj ilaahay quraanku tilmaamayo candhuuf isku qasan oo beedkii hooyada iyo isbaamkii odaygaas kaga qasan dabeetana quraanku wuxuu tilmaamayaa in atwaar ilaahay uu abuuray inaan mar qura qofka bini'aadamka la wada abuurin laakiin tawr bacda tawr atwaar in loo abuuray markaas quraanku wuxuu kala tilmaamayaa tawr kasta ama stage kasta magac buu bixiyay even scientifically maanta stageska bini'aadamku maraa magac kuma leh scientifically embryology marka la daraasaynayo waxa la yiraahdaa usbuuca koowaad usbuuca labaad usbuuca saddexaad usbuuca afraad lagu daraaseeyaa laakiin magac ma leh quraanku magacyo u bixiyay nutfa alaqa mudgha fakasawna al'idama lahma waxa loo bixiyay maxay magacyo asmaa ولذلك واحد العلماء أرنت الله صوبنا جوا وحولها إعجاز كقرآن كانوا وياب كليه وحويان بودي scientifically وحنا نقول نيمس كمجعية ويني أيام بينكم مجعية وضع تنبولي أنا وحنا هاي سنة ويجا تضبط ويجا لبيه تبناد ويجا صدح تبناد ويجا كمان وهينا لكن مجعية وما هينا بالضبط دينا مجع كستو القرآن كنت المامية ويجا قاسي وسيدة ويجي هاي مرو نطفة نمشاجي هاي مروا علقة يهي علقة واللبدنا والله ورن كرا
shayga meesha sudhana waa la odhan karaa waxa yari baadka yar iyo nudfatin amshaajigu raximka ayay meel dalooshataa dabeetana si luluubada yar bay ka laalaadsantaa mucallaqana way ku tay waana xinjir dhiigoo kale weegtay mudqadu waa shay mar la calaaliyo in typically taajaan miyaa la yidhaahdaa nin Filipiini oo dhakhtaro nimanka waaweyn ee la kulmeen ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxaan aad uga yaabanahay mudqada sheegaysa xabad xajaab uu qabto deetana uu calaaliyay uu soo saaray wuxuu yidhi typically saas uu eeg yahay buu yidhi xanjada marka ilaga lagu qabto ay godgodonka yeelato si uu eeg yahay exactly buu leeyahay xataa structure-ku qaabku u form gareysay waa kaas buu leeyahay magac ka fiican oo loo bixin kara buu yidhi wax mar la calaaliyay inuu yahay ma jirta buu tilmaamayaa ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay inuu mudqaye waxa ilaahay tilmaamayaa in dabeetana la falla abuuro dabeetana hilib la huuyo dabeetana sida xadiista iyo nusuusta quraanka ku soo aroortay